ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارتها شرفتها هاي مركز طول العالم كي الدنيا ما كتشوفتان ومسكين كي هلا أو صغير قولي وكل شيء حافظي وكل شيء يدوسي قرانك هل كان الجدان قريان الجدان وقولي أن كل شيء أمر كل شيء ciyaarta sharafta lahay halkan ayuu ku yaalay gurigan ku dhashay hadda labadan qol laga dhisay laakiin halkan buu ahaan jiray guriga kan waxaan dhisay asagana 2001kii ayaan dhisay halkan waxa ku yaalay sartaan waxa laga dhisay darbiga gadaashiisa waa dugsiga quraanka oo aan wax ku soo bartay hadii ay kidmaayo marka barakallahu fiikum Soomaali weyn waa idin salaamay isbash barwaaqo naxariis alle ayaan ku jiraa dalka hooyo nima ay taala vitamin D ayaan si live u qaadanayna qorraxda fasaas ugu qadaxya ma sha Allah ay soo jeedaan hadda waa salaadii duurka ayaan loo adimay cidna ka baqi maysid Soomaaliya ما شاء الله شيخ عبد الرحمن كور أمنية مقالة إلهي أيام هذا السكله أمنه نعمة وين ويان الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إلهي كبد باديي قاتشو كبد بادي عبسي وعرف نبر كان ورشة أمنه إلهي ما هم النقية بعده هم النقية تذكر دقن وحلكس ونقي شرفت الشعل قد يرى موريانو شيء مسكحي شقينا ينا أي هبك سودي بهايين تينا السحر كنا وفرفرمي ونا فرفرمي مركي مدحوينها سوماليا محمد بن عبد الله بن محمد فرماجو والصوب بغدي قرقي وكل شيء يدقان كيسي يدد كيسي تاسنا وكان الدعاء وين أنا أقول هل كان أنا أدعي مسكين كان لبغرش سوماليا أنا كو أماني شري كو ديرين شري إن بطن دل كيسي يدد كيسي سوماليا كترسيه marka ilaa iyo xaafuun qandara ilaa iyo galkac iyo garowe iyo laas qoray ku dhawaaday ilaa iyo boosasa u tagay iyo qardho culimadii siyaasiyiintii aqoon-yahankii waxgaradkii madaxdii galkacyo oo kala xirnayd ilaahay sabab uga dhigay madaxweynaha Soomaaliya yaani cadaado iyo dhuusamareeb aan socon jirin ilaahay sabab uga dhigay madaxweynaha Soomaaliya cawdaq iyo cadaado uu isfahansiyay حرالة يعوض وكل حنا ما أنت يسكو فريين عدو ما أنت عدو مرتقالي سيران مقالة بلمبل على صوب بقدر لا نسي مر حرالة أو دتك الدقن لفتجيسو أي لبكو حدا هاي أنا استقال ساعين وكل حنا دتك هذا اللي في كجرة واحد ليه الشيخ دب عصر بلمبل بدم هذا كدعواني واحد ليه الشيخ هذا أرض هذه أبدا وشعلنا هاي بلمبل وأنا ما شاء الله مقالة مقعوين كل سوماليا ضد حضارة بيصير قريبا الدقن واستعل أو دين تناسي هيد وطوس حقنا أقول ليه جيس نما إذا تعلم أي صومالي تعلم أبي إسرائيل هل كان السلوك عليه لهذه حافظات عبد الواق ما أنتوا إسكفريين مدحوينا إنه حكور علي إنه نحمري لقنا كل نحمري وقالنا السفرات أنا قلت إن شاء الله حافظان بري يحيى حافظان كجس waxay ahaan jirtay meesha laga aasasay way meesha tartoore xaafadahan oo dhan waxa xaafadaha reer Dacasar bal dhaw xaafadahan oo dhan ilaa iyo saaj hadda weeyda maqlaya la hadalada waa shaqaysano hadhow tashay hadda lafka ninka la hadlay balan waa shaqaysano live ku jira insha Allah waa adigu kula hadlayna marka xaji Dacasar oo reer Baraha oo wardheer aha oo ilaa soo guriga wardheer ka dhistay xaaradii caruus kala soo qaxay ayaa magaaladan aasasay magaaladan dad diversity city dad kala duwan oo isku qabiilo kala duwan ah ayaa aasaastay dilay gudmaayo oo wada dagay marixaan jirteen ogaadeen isaaq cidoo bilahay dilay gudmaayo dadkii saldhiga u ahaan waxa kamid ahaa adinka duurka ay shugtay markii doontaan lagama maqla Mareykan waxaan oo kale waa nicmo ilaahay marka xaafadan waxaan dhigi jirnay xaafadda Raisi Xuseenka وما هي مقالة ريد عصر كحية
وحاجة نجح يعني حديث جرنا حبض الهدر وواقع يريري يعني marka waxa weeye marka ayagoo dadku deegaanku nagu xurmeynaya dadkii deegaanka deganaa waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay buuq iyo shidada naga daayaan magaalada waa nala soo degeen martibay ku ahaayeen hareerahay naga degeen waxaan ka codsanaynaa marka xaafadaha dhinacyada naga degay oo downtownka heedaas hareeraha ka degay magaalada dadkii ku xaq lahaa oo soo degay oo asaasay waa annaga weeyaan fadlan waa idin ogol lahaynaa xukuma maamula xukunka qaata waqtiyo qaata oo walba qaata waxaan ka codsanaynaa fadlan noo ogolaan oo nagu xurmeey magaalo walba dad nagu xurmeey ayaa jira in amnigeedii iyo nabadeedii aad nagu xurmaysaa haddii kale salaan kasta oo reer miyiga inta soo gasho ay baasu ka qaadato inaan qorina ma qaadana qalin baan qaadanaa iyo tacliin aniguna hadda tacliintii baan u jeestay xurmana waan u hayaa dowladda soomaaliya shacabka soomaaliyeedna waa jeclahay هذا كوان عنانا هي قارب أي قبيلة قبيل كورتشي لا ما كوان عنان تان وجه على حوينها مركز عنانا يسار وجه يسار وجه حوينها أنا دعاء يدويها للسومال وين الدعاء يدويها وأنا جيسي قرينا وسعودية ذلك يدين يدكنا قدرت ما قعلونا قدرت وإحنا قدرت إنه دورها يعادلنا ونقرها إمامك عادل كأهنا وكمية الضباط أهل جنها إلهي جنة أبلا قاضي إلهي كواس كان سومالي والسنة وأنا هاويل حركة هيل حق waxay kugu leeyihiin intaas soo booqatid horumarkiinu wuxuu ku xiran yahay idinku saad rabtaan waad gaari kartaan haddii aad rabtaan oo waa maxay nabad mar horumar rabtaan horta nabad keena ilaahay baa nabad dahay laakiin walaalooba acmaal isqabsada marka dadka qurbaha fadhiya waxaan leenahay qurba joogta magaalo walba iyo deegaan walba waqooyi iyo koonfur iyo bari iyo meel walba shanta Soomaaliya dagaalka sokeeyo waa dhamaaday magaalada Tabjareel baa degan Jilaac baa degan Haween baa degan cid walba degan qabiil kasta degan Soomaali way baa degan bal dadka wax qabsado oo shaqaysta waa dadka gobolada kala geeyay hadalkii madaxweynaha wad maqlaysan oo ahaa magaalaha hal qabiil degan yahay horumar ma gaarto horumar magaaladan waxyaalaha aan ku arkay wax kamid ah waa magaalo tacliin waa dhaxgalay maxadkan ku qaba caruurta yani Soomaali say wax u barataan ku sheegay halkaan maxadkan raaxi dabacsan طبعا dhisay صبحي بقى الصبح صلاة الفجر كبع يا الصبح صبحي كبع يا الصبح عروت واحد بركان حديث الرسول كقرآن كسنة الليل حافظ كستنا معك ناس ولا كستنا سكول في عادي بكل يوم بعد الصبح أيام صبحنا ملاسك الصبح أفرطي هذا الصبح غني هبين كيف يكبح أيام عروت عابوا في الصومالية سي هذا يوحو برتان هذا واقف غير ولا درس وأنا على نواب يكيم أدري أقول ما يو رياكتيفيست بابي له كل شيء جبوتي مصمري لما صاروا كثير هالكانوا يمين حتى وقت برتاي عليهم بديسين مع عظمات هذا كله مقالة صوت ما شاء الله قرآن عربي ما شاء الله مبارك عليهم مبارنية ما شاء الله يعني لا بتخلص ليفل وي أدري أقول ما شاء الله حاجة ما كانت ما شاء الله صاروا في الصحاب مريكا كان أقوى يعني بعد ذلك وميجا لكن ولو بعد وما عندي فيه شيء جالس أنت ميجا وقاعد تدري وين مكان وأنا كنا يدخل في ميجا كنا فريش أنا جيت كسنيمو حكمة لقبدي فرضاً يعني خطرت فرضاً وياكايا لميو أتذكر وبالسر وحكمة عقل له هي مجال الإيمانية بل dadkii carabta oo jaahiliga anaga ka hor baadiyaha ilmaha la geyn jiray si ay luqadda iyo geesinimada iyo halyeynimada iyo fariid u noqdaan qurbaha waxaad ku araysaa ilmo yaro islaan jirta shan ilaa ayayday ka weyn saleeyahay waa baby nin weyn oo xalaaqsa gacanta lahayd halkaana shay ka jirto ma sha Allah dhalinyarada waxyaalaha kale ku jeclaaday mid walba laba xasb u yeeshay kabadh isku jeclaaday ma sha Allah fuxshigi iyo qurunkii iyo waqtigii magaalada markaan kusoo wareegay shalayto islaamo jaad gadanaya ayaan soo aqnay baa u duceeyey kabacdina waxa ay ilaahay wax ka khayr badan haysi waxay u dhaheen war wax naga gataaban weyna bay dhaheen waxay dhaheen nin qaadida la yidhahda noo yimid oo soo caabada ku soo booqdayba jaadkii wax naga gataan wey wallahi saasay ugu dhaheen marka ninkaas walaalkaya ilaahay ajraas abubakar cawaale qaadid ilaahay khayr ha ku siiyo shalay jaad walihii baa saas ugu yiri cawaale qaadidow
waxa naga gataan weynay markuu noo waxaan jeclaan lahaa inaad ku soo noqotid oo waxa intaad ku kaakiciso aad joojin meel walba tag oo waliba quraanka iyo diinta inay kula socdaan culamo wacyi gelin wada ayaa ficnaan lahayd laakiin haddii dhaanta la tuurto alla qayqay wax ma tag in qaadkii iyo diintii iyo la isku darsado oo ilaahay loogu dhawaado taasna wax fiican ilaahay ka ajirto dawladda Soomaaliyeena daroogada si loo tiri lahaa 2 milyan baa soo gashay magaalada 2 milyan ciidamadooda mushaar bay ka siin karaan shaqaday ka dhisan karaan طبعا halkan waa guriga ku dhashay gurigana sanadku waa 2000 ayaan dhisay dilay ku maayo ku jira abaan malaynayaa 17 years la buu jira gurigana dilay ku maayo ana Mareykan 2 sano joogo dilay ku maayo marka walaalayaal barakallahu fiikum Soomaali weynay waxaan leeyahay carruurtiina keensada aniga laftayga ayaa jeclaaday inkastoo hadda masterkii post graduate masterkii dalka Masar aan ayaa aqbalay inaan diyaariyo insha Allah 2 sano gudahood insha Allah waan ku diyaarin doonaa marka kii waxaan idin leeyahay aniga laftayga cid kasta waan jeclahay xirta waa xurmeeya culimada magaalada oo ahlu sunnah la yaqaano waa salaanay in Cabdi Shawaan waa is aragnay way soo dhaweeyay madaxdii magaalada waa is aragnay marka sakadana hadaan bixiyo taksiga magaaladana aan bixiyo dadka gacaliyay u carahay shacab baladka ayaa ka mid ah madaxdana waa xurmeeya ninkan barada booskiisa live ka soo galay laakiin live kan waa iska xurmeeyo hooyaday baa halkan joogta guriyahan dambana aabahay baa jooga oo aan u dhaxeeya hooyaday iyo aabahay marka qof walowna aabahay hooyada u imow kana ducayso aniga iyo walaalahay ila dhasheen waxaan leeyahay war magacin jiri aabiin iyo hooyadiin ka ducaysta dhowr iyo 20 baa ila dhalatay marka inaan doqomo noqono oo aan qurbaha dhamaarta iska degno dollar iska fashuqno waaridkiina ay dhacdhacayaan wax laga naxweeyaan walaalahay mid kamid ah ugu yiri aniga nin 1 milyan aan haysan oo dollar nin fariido ma ana waxa la nin fariido waxa aninkii aabiin iyo hooyadii kubciye dhaqaaleeya maalin kasta waxar yar u qala hadii la kudmaayo u shiila afka u galiya duusa u galin inta shaqaala u qora caafimaadkoodii hadii la kudmaayo ilaahay baan ku dhaarshi 9 baa qurbaha u jirta Abdullaahi Xaajda aabahay waana dhaqdhaqaaqi la ayahay nafaqa daru la dhacdhahay yaani marka tusaale u suqaadanaya hooyadeen halkaan ma sha Allah yaani ayaduna yaani ay cimri joogta marka waxaan leeyahay ku ila dhashay nafteeda ka bilaabaya ku ila dhashay waaridkeen dhamaanteen ilaahay baan ku dhaashay qof walba wala idilaya yaa ku dilaya aniga ma la idilo cid ku dilaysa ma cid ku falaysa kaalaya dalkiina geesa wala igu soo dhawaad aragteen xiil baa la igu dhuftay jabuuti waa isoo celisay haddana imaaraadka la tarxiir hargeysa horta ka war hargeysa waa faafay karama dad sharaf leh karaama leh ehla diin dhaqan sharaf marka waxaan ka wadaa qaahira turki waa soo wareey ma noqonayaa waaridkay baan aadaya war waxaan marka qof la waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu بالوالدين إحسانا ولا لا يالو وحنا إذا حسنية تاسن ولو با واردك واحد كلا هرتو أياد واردك كيليس الماء كيليس نو واحد جري جيت كان قبا أبيز بتشيل تشيل شيخو سو تشيل هايو أو تشيل هايو أو تشيل هايو يجيك كاس كله أبي جيج أبي يجيبه يقول أنت كسر وتشيل هذا تو جيبه ويل بودا عروم بودا أصلا عروم تشيل تشيلتي سو تشيل يام بجيت كجاسين تشيل سعود يجري أباه جيت كان بنشوتشين شري مركز سينتهراتي لغسيان بيوحيد يجري والزيادة صدقة منا أنت أصلا ديرات صدقة وين حراتنا ديرات حراتنا صدقة ما فيه جيت ما فيه أنا طبعا قرع يكون فتر والصدق كما تدين تدان قفروا بصاد واردك ولا قنت يلا ولا قنت يا ولا لا وحيا واي قفلوا بس واردك ولا دقن هذا ادق كيراهي ما شاء الله يا هيلك ما شاء الله intaas waaridkay baan leeyahay marka hadaan ku mashquulsanaa waxyaalo iska baalkiya maanta ilaahay wuxuu garansiiyay an ilaahina caabudo adoonkiisna noqdo waaridkayna baari aan u noqdo dantaydana aan garto ummadda muslimkuna ay iga nabad gasho qabiil kasto ay tahay dawladuna ay iga nabad gasho
casharadii dadweynaha oo haysaa wey casharadii horta bal iyagoo cilmiyeysan oo akhlaaq leh haddii la jeediyo wax dhibla ma leh oo erayada la xulanahayo wax fiican laakiin hadda waxaaban dareemayba yani jihaadka ugu weyn inuu yahay inaan anigu naftayda aan badbaadiyo akhlaaqdayda aan ficneeyo asluubeeyo dulmigii aan ku jiray aan ka baxo muslimiinta aan qabiil kasta iyo kasta iyo cid walba aan cafis aan weydiisto ducaan ka dalba hadda shalay halkaan baa waalidkay iigu duceeyeen waxay yihiin macalinkayga qur-aanka baray macalin xasan aabbahay hooyaday ehelkay habaryarahayba hadda ii jooga maasha iyo ehelkay oo dhan tan isaa guriga lagama bixin shalay lagama bixin waa la ii duceeyey duco qur-aan baa laygu akhriyey qur-aankiina waa dareemayaa waalidkay markay ii duceeyeen macalinkayga qur-aanku ii duceeyey qaraaba iyo ehel iyo soomaali ii ducaysay ilaahay warmuu iga saar warmo ana u jeeda hal mar balaayo saa layga saar shagac layga saar fid balaayo sidii nabi maxamed sal alay slam markii sixirka iyo isha iyo lala helay uu u noqday markii falaq iyo barbinaas laga soo jiray awr dabarka ilaahay ka furay oo kale waxaan leeyahay marka walaalayaal cafaliyo miskiinka alla faruurin ka qaaday soomaali weyn dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina kuwa ilaalsada allah idinka dhigo anigana allah idinka dhigo sida magaalada ayaan ku jiraa dalkaana hooyo nicmo ayaa taala fitamiin d ayaan si life u qaadanayna qoraxda fasaas ugu qabaxya ما شاء الله أسد جدا هذا وصلاة دورك أيام لو أدمي عندنا كبقي ميسد الصومالية ما شاء الله شيخ عبد الرحمن كورة أمنك مقالة إلهي أيام هذا السكالة أمنه نعمة وين ويان الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إلهي كبد باديي قاتشو كبد باديي عبسي وعلى الطبق كان ورشة أمنه إلهي بقى مهنقيا بعد وحنا مهنقيا ذاتك دقن وحلكس ونقى شرفت الشعل قد يرى موريانو شيء مسكحي شقينا ينا أي هبك سودي بايين تينا السحر كده وفرفرمي ونا فرفرمي مركي مدحوينها الصومالية محمد بن عبد الله بن محمد فرماجو الصوب بغدي قرقي وكل شيء يدقان كيسي يدكيسي تاسنا وكان الدعاء وين أنا أقول هل كان أود دعاء مسكين كان لبغرشة الصومالية أنا كو أماني شري كو ديرين شري إن بطن دالكيسي يدكيسي الصومالية كترسيه مركا إلى يحافون قندلاء إلى يقال كعي يقروا يلا سقري وكل وادي إلى يبوسس ودري يقردو علماء سياسيين تي أقوياء كي وحكرت كي مدحدي قال كعيو أو كل حرنين إلهي سبب قدري نحوينها صوماليا يعني عداده يدو سمريب أن السعودية إلهي سبب قدري نحوينها صوماليا عوضي عداده وسفانسي حرالة عوضي كل حرنا ما أنت يسكفرين عدوه ما أنت عدوه مرتقالي سيران قال بلمبل أن صوب بقدر لا نسي مر حرالة أو دتك الدقل نفتقيسو أي لبقوا حدا هايان تدقال سنايا dadka hadda life ku jira waxay leeyihiin sheekh dab casar reer balanbal badan baa hadda ku daawanaya waxay leeyihiin sheekh ardadaadii u badan waa jecelnahay balanbal waana maasha Allah magaalo magac weyn kula Soomaaliya dad xadaarada meesha ka garay baan degan oo isjecel oo diintana sidii ay ahayd ugu toosan xaqana u yeelaya geesinimo iyo dad jecelnimo iyo Soomaali jecelna abi Israa'iil halkaan sidoo kale lixdii xaafadood كعبد واق ما أنت واسكفرين مدحوينا ونوحان كور علي إنه دحمري لقنا كل دحمري فقال لي السفرات أنا قلت له شليته حافظان بري يحيى حافظان كجس وحي هاجرتي ماشي على أساسي وماشي ترى حافظها أنا ودو حافظها هذا عصر بالله وحافظها أنا ودن إلى إيو هذا وإذا مغليا لا هذا لا هذا وشك سنون هذا وتشك هذا لايف كذا نيك لا هذا ولكن وشك سنون لايف ممكن إن شاء الله وأنا بقول هذا إن شاء الله مركا الحاج دل عصر قريب براها وديرها وإلى سدون قريب وراك بستي الحارة عروس كلا سقحي أيام مقالة أنا أساسي مقالة أن دايفرسيتي ستبعي تذكر دوان أو قبيلنا قبيلة كلا دوان أي أساسي دلائي بدنا هيو أول دقي مريحان شرتين أو بعدين إسام عدوا بها هاي دلائي بدنا
hayo dadkii saldhigga u ahaana waxaa ka mid ahaa adinka duurka ay joogtoy waad arki doontaa lagama maqla maraykan waxaan oo kale waa nicmo ilaahay marka xaafadaanna waxaan dhihi jirnay xaafadda reesiya xuseenka oo maya magaalada reer dacasra ka xigay xagga naga xigan waxaan dhihi jirnay xaafadda reer daral waa waaga yaryaray yacni marka waxaa weeye marka ayagoo dadku deegaanku nagu xurmeynaya dadkii deegaanka deganaa waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay buuqa iyo shidada naga daayaan magaalada waa nala soo degeen martibay ku ahaayeen hareerahay naga degeen waxaan ka codsanaynaa marka xaafadaha dhinacyada naga degay oo downtownka reedaas hareeraha ka degay magaalada dadkii ku xaq lahaa oo soo degay oo asaasay waa annaga weeyaan fadlan waa idin ogolaynaa xukuma maamula xukunka qaata hortooyo qaata wax walba qaata waxaan ka codsanaynaa fadlan noo ogolaan oo nagu xurmeeyo magaalo walba dad lagu xurmeeyo ayaa jira in amnigeedii iyo nabadeedii aad nagu xurmaysaa haddii kale salaan kasta oo reer miyi inta soo gasho ay baasu ka qaadato annaga qorina ma qaadana qalin baan qaadanaa iyo tacliin aniguna hadda tacliintii baan u jeestay xurmana waan u hayaa dowladda soomaaliya shacabka soomaaliyeedna waa jeclahay hadda kuwaan canaanahayena qaar baa ii qaba inaan qabiil ka hor jeeda dilaan maya kuwa aan canaantaan ugu jeclaa dadka madaxweynaha markaan canaanaya isaan ugu jeclaa madaxweynahana ducadeedina wuu helay soomaali weyna ducadeeda wuu helay waana geesi horeyna wuu soconaya dalka iyo diinta iyo dadkuna u dhaartay magaca alluna ku dhaartay wuxuuna u dhaartay inuu dhowrahayo caadilna u noqonayo imaamka caadilka ahna wuxuu ka mid yahay 7 ahlu jannaha ilaahay jannada u ballan qaaday ilaahay kuwaas ka mid soomaali u sidoo waana hawilin haraka hilin xaq waxay kugu leeyihiin intaas soo booqatid horumarkiinu wuxuu ku xiran yahay idinku saad rabtaan waad gaari kartaan haddii aad rabtaan oo waa maxay nabad ma rabto horumar ma rabtaan horta nabad keena ilaahay baa nabad dahay laakiin walaalooba gacmaha isqabsada marka dadka qurbaha fadhiya waxaan leenahay qurba joogta magaalo walba iyo deegaan walba waqooyi iyo koonfur iyo bari iyo meel walba shanta Soomaaliya dagaalkii sokeeye waa dhamaaday magaalada Tanjareer baa degan Jilaac baa degan Haween baa degan cid walba degan qabiil kasta degan Soomaali weyn baa degan bal dadka wax qabsada oo shaqaysta waa dadka gobolada kala ka yimid hadalkii madaxweynaha wad maqlaysan oo ahaa magaalo hal qabiil degan yahay horumar ma gaarto horumar magaaladan waxyaalaha aan ku arkay waxa kamid ah waa magaalo tacliin waa dhaxgalay maxadkan ku qaba caruurta yani Soomaali say wax u barataan ku sheegay halkaan maxadkan raaxada dabacsan baa dabcan dhisay صبحي بقى الصلاة صلاة الفجر كبعد على الصبح صبحي كبعد على الصبح أروح واحد بركان حديث الرسول كقرآن كسنة تدين حافظ كستنا مع الناس مرة سكول في عالقة بكل يوم بعد الصبح أيام صبحنا ملا صبح أفرطي هذا نقص النقطة هبين كيف يكبح أيام عروت عابوا في الصومالية سي هذا يحب بركان هذا واجب ما يقول أنا درس وأنا نواب يكيم أدري بما يرأيكيس بابي له كل شيء تبوت مصمري لا مثلا تكتير هالكانوا يمين حتى وده برتاي يعني عليم المدرسين مع عثمان هذا كل مقالة صوت ما شاء الله قرآن كريم عرفت ما شاء الله مبارك علمت مبارنية ما شاء الله يعني لا بخلص لا بنوي أدري ما شاء الله امتحانك ما كان ما شاء الله صار هو الصحاب مريك من أقوال يعني بعد ذلك وميجا لكن ولا بعد وما أدري فيه شيء جالس لكن ميجا وكعب بديوي زي ما قال وحنا كنا يدخل في ميجا حكي كنا فريش أنا جيت كسنيمو حكمة لقب دي رمضان يعني خطرت رمضان ويا كايا الميجا أدق والسر وحكمة عقل له هي مقالة إيمانية بل dadkii carabta oo jaahiliga ah leeyahay ka hor baadiyaha ilmaha la geyn jiray si ay luqadda iyo geesinimada iyo halyeynimada iyo fariid u noqdaan qurbaha ku horeysa ilmo yaro islaan jirta shan ilaa ayayday ka weyn saleeyahay waa baby nin weyn oo xalaabsa gacanta lahayd halkaan shay ka jiro ma sha Allah dhalinyarada waxyaalaha kale ku jeclaaday mid walba laba xasb u shay kabadasta ma sha Allah fuxshigi iyo qorunkii iyo waqtigii magaalada markaan kusoo wareegay shalayto islaamo jaad gadanaya ayaan soo agnay baa u duceeyey kabacdina waxaa idhi ilaahay wax ka khayr badan ha idin waxay u dhaheen war wax naga gataaban weyna bay dhaheen
عيد إن قاعدين اللي هذا نوع يميدو عاوده قصة بغضيبة شات كي وحنا يقتاو والله يساسي والله marka ninkaas walaalkaya ilaahay ajraas Abu Bakar Awaale Awaale qaadiid ilaahay khayr ku siiyo shalay jaad walihi baa saas u yiri Awaale qaadiido waxa naga qitaa weynay markuu dhow waxaan jeclaan lahaa inaad ku soo noqotid oo waxa intaad ku kaakiciso aad joojin meel walba tag waliba quraanka iyo diinta inay kula socdaan culimo wacyi gelin wada ayaa ficlaan lahayd laakiin haddii dhaanta la tuurto wala waxmatan in qaadkii iyo diintii iyo la isku darsado oo ilaahay loogu dhawaado taasna wax fiican ilaahay ka ajirso dawladda Soomaaliyeena daroogada si loo tiri lahaa 2 milyan baa soo gashay magaalada 2 milyan ciidamadooda mushaar bay ka siin karaan shaqaday ka dhisan karaan طبعا halkan waa guriga ku dhashay gurigana sanadku markuu ahaa 2000 ayaan dhisay dilay ku maayo ku jira abaan maleynaya 17 years la buu jira guriga dilay ku maayo ana Mareykan 2 sano joogo dilay ku maayo marka walaalayaal barakallahu fiikum Soomaali weynay waxaan leeyahay caruurtiina keensada aniga laftayda ayaa jeclaaday inkastoo hadda masterkii post graduate iyo masterkii aan dalka Masar aan ayaa aqbalay inaan diyaariyo insha Allah 2 sano gudahood insha Allah waan ku diyaarin doono marka laakiin waxaan idin leeyahay aniga laftayda cid kasta waan jeclahay xirta waa xurmeeya culimada magaalada oo ahlu sunnaha la yaqaano waa salaanay in Cabdi Jawaan waa is aragnay way soo dhaweeyay madaxdii magaalada waa is aragnay marka sakadana hadaan bixiyo taksiga magaaladana aan bixiyo dee hadana uga caliyay u carahay shacabka beledka ayaa ka mid ah madaxdana waa xurmeeya ninkan baan hadda booskiisa live ka soo galay laakiin live kan uu waa iska maayo hooyaday baa halkan joogta guriyahan dambana aabahay baa jooga oo aan u dhaxeeya hooyada iyo aabahay marka qof walowna aabahay hooyada u imow kana ducayso aniga iyo walaalahay ila dhasheen waxaan leeyahay war magacin jiri aabiin iyo hooyadiina ka ducaysta dhowr iyo 20 baa ila dhalatay marka inaan doqomo noqono oo aan qurbaha dhamaarta iska degno dollar iska fashoqno waalidkiina ay dhacdhacayaan wax laga naxweeyaan walaalahay mid kamid ah ugu yiri aniga nin 1 milyan aan haysan oo dollar nin fariida ma ana waxa la nin fariida waxa aninkii aabiyo hooyadii kubciye dhaqaaleeya maalin kasta wax yar u qala hadii la kudmaayo u shiila afka u galiya duusa u galin inta shaqaala u qora caafimaadkoodii hadii la kudmaayo ilaahay baan ku dharshay 9 baa qurbaha u jirta Abdullaahi Xajda aabahay وانا دقدقاق لا ايه نفقه در لا دحدحay يعني marka tusaale soo qaadanaya hooyadeen halkaan ma sha Allah yani ayaduna yani ay cimri joogtaa marka waxaan leeyahay ku ila dhashay nafteeda ka bilaabaya ku ila dhashay waalidkeen dhamaanteen ilaahay baan ku dhashay qof lowba wala idilaahay ayaa ku dilaahay aniga ma la idilo cid ku dilaysa male cid ku falaysa kaalaya dalkiina cidna ka baqi maysid Soomaaliya ما شاء الله شيخ عبد الرحمن كور أمنية مقالة إلهي أيام هذا السكالة أمنه نعمة وين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إلهي كبد باديي قاتشو كبد باديي عبسي وعرف نبر كان ورشة أمنه إلهي ما هم النقية بعده هم النقية تذكر دقن وحلكس ونقى شرفت الشعل تضيروا موريانو شيء مسكحي isku shaqeynayana ay hubka isugu dhiibaayeen tiina sixirkina uu furfurmay markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed bin Abdullah bin Maxamed Farmaajo uu soo boqday gurigii uu ku dhashay iyo deegaankiisa iyo dadkiisa taasna uu ka helay duco weyn anigu halkaan uga duceeyay miskiinka la boqorshada Soomaaliya ana ku amaani jiray ku dhiirigelin jiray in badan dalkiisa iyo dadkiisa Soomaaliya ka tirsan yihiin marka ilaa iyo xaafuun qandara ilaa iyo galkacyo iyo garowe iyo laas qoray ku dhawaaday ilaa iyo boosaaso u tagay iyo qardho culimadii siyaasiyiintii aqoon-yahankii waxgaradkii madaxdii galkacyo oo kala xirnayd ilaahay sabab uga dhigay madaxweynaha Soomaaliya yani cadaado iyo dhuusamareeb aan socon jirin ilaahay sabab uga dhigay madaxweynaha Soomaaliya cawdaq iyo cadaado uu isfahansiiyey حرالة يعوض وكل حنا ما أنت يسكو فريين عدو ما أنت عدو مرتقالي سيران مقالة بلمبل أنا صوب بقدر لا نسي مرة حرالة أو تذكر دقل لفتيسو أي لبقوا حدا هاي أنا تدقال سنايا
gurceel iyo kala xirnaa dadka hadda live ku jira waxay leeyihiin sheekh dab casar reer balanbal badan baa hadda ku daawanaya waxay leeyihiin shaqada ardadaadii u badan waa jecelnahay balanbal waana maasha Allah magaalo magac weyn ku leh Soomaaliya dad xadaaradda meel sare ka garay bana degan oo isjecel oo diintana si ay ahayd ugu toosan xaqana u yeelaya geesinimo iyo dad jecelnimo iyo Soomaali jecelna habi Israa'iil halkaana sidoo kale lixdii xaafadood gacaabadu waa maanta waa isku furan yihiin madaxweynahuna waxaan ka war helay inuu dhex maray lugna ku dhex maray magaaladana isku furantay anigu laftaydu shalayto xaafadahan bariga iyo xiga xaafadan ka gees waxay ahaan jirtay meesha laga asaasay way meesha tarafta hore xaafadahan oo dhan waxa la xaafadaha reer Casar baa la dhahaa xaafadahan oo dhan ilaa iyo hadda weyda maqlayaa la hadal hadda waa shakaysan doonaa hadhow tasha hadda live ka ninka la hadlay balan waa shakaysan doonaa live ku jira insha Allah waa adigu kula hadlay marka xaaji dab casar oo reer baraha oo wardheer aha oo ilaa soddon guri wardheer ka dhistay ama xaaradii caruus kala soo qaxay ayaa magaaladan aasaasay magaaladan dad diversity city bay dad kala duwan oo isku qabiilna qabiilo kala duwan ah ayaa aasaastay dilay gudmaayo oo wada degay marixaan jirteen ogaadeen isaaq cid walba lahayd dilay gudmaayo dadkii saldhigga u ahaana waxa ka mid ahaa adinka doorka ay joogtay markii doontaan lagama maqlo Mareykan waxaan oo kale waa nicmo ilaahay marka xaafadan waxaan dhigi jirnay xaafadda Reesi Xuseenka oo maya magaalada reer Casar ka xigay waxa naga xigay waxaan dhigi jirnay xaafadda reer Daral waa waga yar yaray yani marka waxa weeye marka ayagoo dadku deegaanku nagu xurmeynaya dadkii deegaanka deganaa waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay buuqay shidada naga daayaan magaalada waa nala soo degeen martibay ku ahaayeen hareerahay naga degeen waxaan ka codsanaynaa marka xaafadaha dhinacyada naga degay oo downtownka reer Casar hareeraha ka degay magaalada dadkii ku xaq lahaa oo soo degay oo asaasay waa anaga weeyaan fadlan waa idin ogolayn xukuma maamula xukunka qaata hortooyo qaata oo walba qaata waxaan ka codsanaynaa fadlan noo ogolaan oo nagu xurmeeyo magaalo walba dad nagu xurmeeyo ayaa jira in amnigeedii iyo nabadeedii aad nagu xurmaysaa haddii kale salaan kasta oo reer miyiga inta soo gasho ay baasu ka qaadato anaga qorina ma qaadana qalin baan qaadanaa iyo tacliin aniguna hadda tacliintii baan u jeestay xurmana waan u hayaa dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeedna waa jecelahay هذا كوان عنان هاي قارب أي قبيلة قبيل كورتشي لكن ما يا كوان عنان تان وجه على حوينها مكان عنان يسار وجه حوينها أنا دعاء يرويها للسومال وين الدعاء يرويها وأنا جيسي هرين وصل يدلك يدين يدلكنا قدرت ما قالونا قدرت وإحنا قدرت إنه دورها يعادلنا ونقرها إمامك عادل كأهنا حكمية الضباط أهل جنها إلهي جنة أبلا قاضي إلهي كواس كامل سومالي وسنا وأنا هاويل حركة هي حق waxay kugu leeyihiin intaas soo booqatid horumarkiinu wuxuu ku xiran yahay idinku saad rabtaan waad gaari kartaan haddii aad rabtaan oo waa maxay nabad ma rabto horumar ma rabtaan horta nabad keena ilaahay baa nabad dahay laakiin walaalooba ama is qabsada marka dadka qurbaha fadhiya waxaan leenahay qurba joogta magaalo walba iyo deegaan walba waqooyi iyo koonfur iyo bari iyo meel walba shanta Soomaaliya dagaalka sokeeyo waa dhamaaday magaalada Tanjireel baa degan Jilic baa degan Haween baa degan cid walba degan qabiil kasta degan Soomaali weyn baa degan bal dadka wax qabsado oo shaqaysta waa dadka gobolada kala ka yimid hadalkii madaxweynaha wad maqlaysan oo ahaa magaalo hal qabiil degan yahay horumar ma gaarto horumar magaaladan waxyaalaha ku arkay wax kamid ah oo magaalo tacliin waa dhaxgalay maxadkan ku qaba caruurta yani Soomaali say wax u barataan ku sheegay halkaan maxadkan raaxada dabacsan baa dabcan dhisay صبحي على الصبح صلاة الفجر كبع على الصبح صبحي كبع على الصبح أروح واحد بركان حديث الرسول قرآن السنة تقريبا حافظ كستنا مع الناس غلط سكول في عادي بكل يوم بعد الصبح أيام صبحنا ملاسك الصبح أفرطي هذا القصة نقولها هبين كيف يكبحيا عرور تعامل واقعي الصومالية سي هذا يحب بركان هذا واقع مغير ولا درس وأنا نواب يكيم أدلى يقول ما يو رياكتيس بابي لكل شيء تبوت مصمري لا مثلا كتير هالكانوا يمين حتى وده برتاعي يعني
medicine ama caafimaadka dhowrkuna magaalada soo ما شاء الله قرآن عربي الله مبارك تعليمته مبرمجة ما شاء الله يعني ليفل خلص ليفل وي هذي لا يقول ما شاء الله امتحانك ما كان ما شاء الله صار ابو الصحاب مريكا كان اقوى يعني بعد ذلك وميغا لكن ولو بعد ما دي بي اتش جوب dadka miyiga waa ka caqli weyn reebaga waxaana keenaya dhaqankii miyiga ka hore waxay arkeen fresh ana geesinimo xikmad luqadii badan iyo yani khatarad badan ay arkayaan miyiga adag oo dhisan oo xikmad iyo caqli leh ayaa magaalada imaanaya bal dadkii carabta oo jaahiliga nabi xasan ka hor baadiyaha ilmaha la geyn jiray si ay luqadda iyo geesinimada iyo halyeynimada iyo fariid u noqdaan qurbaha waxaad ku horeysaa ilmo yaro islaan jirta shan ilaa ayayday ka weyn saleeya waa baybi nin weyn oo xalaabsa gacanta lahay halkaana shay kama jirto ma sha Allah dhalinyarada waxyaalaha kale aan ku jeclaaday mid walba laba xaas buu shay gabadha iska ma sha Allah fuxshigi iyo qurunkii iyo waqtigii waa istaagay magaalada markaan kusoo wareegay shalayto islaamo jaad gadanaya ayaan soo aqbalay baa u duceeyey kabacdina waxaa ilaahay wax ka khayr badan haysi waxay u dhaheen war wax naga gataaban weyna bay dhaheen waxay dhaheen nin qaadida la yidhahda noo yimid oo sucaabada ku soo booqdayba jaadkii wax naga gataan wey wallahi saasay ugu dhaheen marka ninkaas walaalkaya ilaahay ajraas abubakar cawaale cawaale qaadiid ilaahay khayr ha ku siiyo shalay jaad walihii baa saas ugu yidhi cawaale qaadiidow wax naga gataan weynay markuu noo waxaan jeclaan lahaa inaad ku soo noqotid oo waxa intaad ku kaakiciso aad joojin meel walba tag oo weliba qur'aanka iyo diinta inay kula socdaan culamo wacyigelin wada ayaa ficnaan lahay laakiin haddii dhaanta la tuurto in qaadkii iyo diintii iyo laisku darsado oo ilaahay loogu dhawaada taasna wax fiican ilaahay ka ajirso dowladda soomaaliyana daroogada sidii loo tiri lahaa 2 milyan baa soo gashay magaalada 2 milyan ciidamadooda mushaar bay ka siin karaan shaqaday ka dhisan karaan طبعا halkan waa guriga ku dhashay gurigana sanadku markuu ahaa 2000 kowdii ayaan dhisay dilay gudmaayo ku jira abaan maleynaya 17 years buu jira gurigana dilay gudmaayo ana Mareykan 2 sano joogo dilay gudmaayo marka walaalayaal barakallahu fiikum Soomaali weynay waxaan leeyahay